gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland Ali Ibrahim Jaamac Baqdaadi oo soo gaaray magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar ayaa waxa uu soo kormeeray dhulka loo asteeyay in laga bineeyo banka cusub ee la filayo in dhawaan laga dhiso magaalada Caynab ee xarunta gobolka Saraar. bankan oo la filayo in si hab casri ah loo dhiso. Mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Caynab ayaa madal uu barasaabka gobolka Saraar goobjoog ka ahaa. Waxay si rasmi ah dhulka laga dhisi doono bankigaasi ugu wareejiyeen gudoomiyaha banka dhexe ee Jamhuuriyadda Somaliland. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Caynab Nuur Iidla Ducaale iyo barasaabka gobolka Saraar Maxamed Cismaan Xaaji Axmed. Waxayna faahfaahin ka bixiyeen dhulkan iyo muhiimadda dhismaha bankani u leeyahay guud ahaan gobolka Saraar. Maanta waxaanu dhulkii ku wareejinaynaa guddoomiyihii baankii hadiyadda ahaa ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Caynaba xilligii u soo baxay xagga bariga xilligii gobolada bariga u soo baxay markii uu soo gaaray baankaas maanta dhulkiisa ku wareejinaynaa gudoomiyaha baanka gudoomiyaha guddoon aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumaddiisa iyo gudoomiyaha baanka oo maanta aan ku wareejinayno dhulkaas. Raxmaani Raxiim Ilaahay baa mahadlay subxaanahu wa tacaala. ugu horeyn waxaan runtii uga mahadcelinayaa gudoomiyaha banka Jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo oo maanta inoogu soo kactimay safar shaqo oo ay ku indheynayaan kuna wareejinayno dhulkii loogu talagalay in laga sameeyo bankii uu yeelan lahaa gobolka Saraar degmada Caynab runtii magaalada madaxdiisa ah oo runtii dhul aad u weyn oo ku yaala faras magaalaha waxaanu runtii rajaynaynaa sidii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudan Muuse Bixi uu ballan qaaday in laga dhiso baan casri ah oo runtii gobolada bari oo dhan runtii anfaca. ugu dambeyntiina gudoomiyaha banka dhexe Jamhuuriyadda Somaliland Ali Ibrahim Jaamac Baqdaadi ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismaha bankan la filayo in dhawaan laga hirgeliyo gudaha magaalada Caynab. waxaan marka hore mahadcelinayaa gudoomiyaha gobolka Saraar gudoomiyaha dawladda hoose taliyaha booliiska iyo dhammaan madaxda qaranka ee halkan joogta aad iyo aad baa idinku mahadnaqaya soo dhaweynta wanaagsaneed. maanta waxaanu halkan u nimi inaanu gudoono dhul laga dhisi doono insha allahu baan ay leedahay dawladda Somaliland. waxaana amray madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Bixi Cabdi in gobolkana laga dhiso baan casri ah oo maadaama gobolkan yahay gobol aad ballaaran degmooyin badan xukuma dhowr kastam leh oo waridaad iyo muxuu ahaa wadaamo gooy iyo dhowr kastam buu leeyahay. marka xagga hoose waxa ku jira kolay nimca fadhida iyo gaas iyo shidaal. marka mustaqbalka ayaynu ugu talagalaynaa in baanankeenu la jaan qaadaan. baan way leedahay laakiinse waa baan yaroo beri hore la sameeyo yar. marka in mid weyn oo muxuu ahaa masaaxad weyn ku fadhiya la sameeyo ayaanu ku tala jiraa. maanta dhulkii maanu la wareegnay insha allahu dhagax dhigiisana dee madaxweynaha markuu goboladan soo baxo dhagax dhigi doona. aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin goobtan wanaagsan faras magaalaha ku taala dawladdii hoose iyo saldhiggii booliiskaba ku dhow inaad nasiisaan waa ku gudoonay. Jaamac Boodacade warbaahinta qaranka Somaliland Caynab.